إزدلا هذا جعلك وحيد خويسه ما هو فيري سايب رون ما تكنا رون شو كان سي مكرني أنا كره بادي باي ملي قبل شو كان سي مشروع وسمية أو ديارينيس أقل كذا waxay la aqal gashay nin ka soo jeeda dalka Pakistan waa lamaane isku bartay gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland oo ay hadda ku nool yihiin inay isguursadaan kaliya waxay ku qaadatay 3 maalmood oo qura qof 3 maalin isku guursaday yaani kan shukaansi iimayay qaanin marka isbarani maanta ku isbarani maanta labaad waa wada hadalnay مالك سدحات فاميلك أو كأني كتب حودة أنا شو كان سي اللي سوى الوضع مجعلي جور حلالة وباهنا هاي شو كان سن ما خاني ولي قبل من شو كان سن هاي زبور سنة أوكي مركا أو أركي إنه كان دا عادي هاي أو محلها كتب أوكي دا هي دا فاميلك أو كأني كتب سدي أسكو جور سنة هذا نروح هات بيمني شيء سا أسكو فهم سنة ويا بيسا يعني ورضت نولش أسكو فهمين يعني وحول أسكو فهمين أنا مفهمتين Rashid oo jacayl u qaaday gabadhan ayaa sheegay inuu isagu markii ugu horeysay uu ka dalbaday inay u qorto telefoon lambarkeeda maalinta ku waa bare lambar ana qaatay ana soo garaay ma qabani adwana soo garaay isii lambar waa karta sadde bari waash kaansi bas maalintii waa tagi kidra ninkan oo aan si fiican ugu hadli karin Soomaaliga waxa uu fududeeyay hasawaha afka urduuga oo ay Sumayo taqaan baasun heebaad jordo तू मेरे पास खुद नहीं आ गई तू नहीं कहता मैं आपसे चाहती हाँ मैं प्यार करता हूँ इधर से बोल रहा था أنا ما تماشين مآذن أسين كهرتي ساخاني يعني ما هو إنه أسي يبري يعني هذا ضبنا أركاز ياكو برتي لها يعني أنا حاكو برتي يرانتي ذا وحاجة على الخضان إنا برتو ثاني شيء وحاكو برتي فيلمات كاكو برتي فيلمات كافير سجري فيلمات كسافير سجري وكسوي نادي كده يعني أنا وحاي خوف إسكم مدح فضاء يعني وح مدح قلي وبرتاه وحول بن برشواي يعني وح مستحيل مجرته barta YouTube oo ay dhawaan ku soo biirtay waxay ku lafa gurtay arrimaha qoyskeeda taas oo ay dad badani ka falceliyeen kuwaas oo qaarkood ku amaanay aqalkeeda cusub halka in kale ay u arkayeen guursiga ajnabiga mid aan ku haboonayn gabdhaha Soomaalida farxadii iyo reeraynta wajigeeda ka muuqata waa mid sabab u ah jacaylka wanaagsan ee ka wada dhaxeeya guurkan sheecib ma xalaal alxamdulillah waan ma sha Allah waan isku fahanay dad oo meel wada degan oo farxad ku nool oo maanta nolosha isla qaybsanaya oo wax dhibaato iska sheegneenayaan wallahi hadda waxa is leedahay asxaabteeda qof saddex ber isku guursad waxay nooltahay amal anagoo intaas oo sano isla joognay sanooyin badan isla joognay taas fahansanayaa marka asxaabteeda waxaan sheegaa guurkum ku xirno inaa waqti dheer la wada socdo يعني لو شيء كيس وقت غير يعني دبع عداد إسفامينا دبع عداد سوى حاسم جيران ما عند جورك وحواي محلها قف ما عند بين آدك نلاش ولا خاتان وحول ماشى زيسك وده فهميان يعني لايك قف بين آدك وحوس دا يعني أنا حد لو كبرت سيسكو كورسيننا يو وقتي أخذنا شيء كيسنا يوحس راشدنا وحو مركا قار دبك وقلا حاسكيسا markana waxa uu dubayaa kalluun oo bariiskii lagu cuni lahaana uu dabka ka dajiyay ma ahan wax ku cusub indhaha bulshada in gabdha Soomaaliyeed ay la aqal galaan rag dalal shisheeye ka soo jeeda waxay qaarkood ku micneeyaan mid ay kaga nasteen dibka ragga Soomaalida iyo salow kale oo aan la isku raacsanayn dab ahaanshihiisa inkastoo Sumayo ay ku doodeyso inaysan aragti sida lamida qabin marka laga yimaado in gursiga uu ku wacan yahay wada dhalashada bulsho ahaan Soomaalida haddana xagga diinta marka laga eego waa mid u furan dhammaan muslimiinta